Assalaamu calaykum. Nin u dhashay dalka Mareykanka ayaa noqday qofkii ugu horreeyay adduunka lagu tallaalay wadna uu leeyahay xayawaanka doofaarka oo isbeddel dhinaca hiddaha lagu sameeyey. Maxay tahay natiijadii laga gaadhay qaliinkaas? David Bennett oo ah 57 jir ayaa xaaladdiisu wanaagsan tahay 3 maalmood kadib markii lagu sameeyey qaliinka tijaabada oo qaatay 7 saacadood sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. Ku tallaalista wadnaha waxay ahayd rajadii ugu dambeysay ee laga qabo in lagu badbaadiyo nolosha Mr. Bennett, inkastoo weli aysan kala caddayn muddada uu sii noolaan karo. Waxay ahayd imo amaah lagugu tallaalo wadnahaas, ayuu yidhi Mr. Bennett oo xaaladdiisa ka sheekaynaya. Maalin ka hor qaliinka, waan ogahay waa arrin aan la ogaan karin waxa ka dhalan kara, balse waxay fursaddii ugu dambeysay, ayuu yidhi Mr. Bennett. Dhakhaatiirta xarunta caafimaadka ee Maryland ayaa fasax khaas ah ka helay waaxda sharciyeynta arrimaha caafimaadka ee dalka Mareykanka si ay qaliinkaas u fuliyaan. Sababta loogu oggolaadayna waxay ahayd in haddii aysan sidaas samayn Mr. Bennett ay dhimashadiisa mas'uul ka noqon lahaayeen dhakhaatiirtii qaliinka ku samaysay. Waxaa hore loo sii ogaa inuusan ku badbaadi karin wadna doofaar, go'aankaasoo ay dhakhaatiirtu ka gaadheen bukaanada ay xaaladooda caafimaad ay aadka u liidato. Kooxdan dhakhaatiirta ee samaysay qaliinkan waxay ka midho dhaliyeen cilmi-baadhis socotay sannado badan, taasoo ay ku tilmaameen mid isbeddel u horseedi karta nolosha guud ahaan dunida. Mr. Griffith oo ah dhakhtar ku takhasusay qaliinada ayaa sheegay in qaliinka noocan ah dunida ku soo kordhay hal tallaabo oo lagu dhawaado xalinta baahida badan ee ka jirta xubnaha la beddelayo, sida lagu xusay bayaan ka soo baxay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Maryland. 17 qof ayaa maalin kasta ku geeriyooda gudaha dalka Mareykanka iyagoo sugaya inay helaan qaliin lagu beddelo xubnaha. Hadda waxaa lagu soo waramayaa in tirada dadka sugaya ay ka badan yihiin 100,000 oo ruux. Suurtagalnimada in xubnaha xayawaanka ay daboolaan baahida caynkaas ah ayaa laga fikirayay muddo dheer. Horena waxaa loo adeegsaday xubnaha xayawaanka doofaarka bishii Oktoobar ee sanadkii tagay 2021. Dhakhaatiirta ku takhasustay qaliinka ee ku sugan magaalada New York ayaa shaaciyay inay ku guulaysteen qaliin ay kelida doofaarka ugu rakibeen qof. Xilligaas qaliinka ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee ku saabsan in xubnaha xayawaanka loo geliyo bini'aadamka. Hase yeeshee, qofka kelidaas loo geliyey waxa uu ahaa qof maskaxda ka dhintay oo aan wax rajo ah laga qabin inuu sii caafimaado. Balse Mr. Bennett ayaa sidaas ka duwan, waxa uuna rajaynayay in qaliinkan lagu guulaysto oo uu noloshiisa sii wato. Muddo 6 isbuuc ayuu saarnaa sariirta ka hor intaan lagu samayn qaliinka. Waxaa ku xidhnaa qalabka u shaqeeya caawiyaha wadnaha. Waxaa wadnaha kaga dhacay cudur waxyeello badan gaarsiiyey. Waxa uu ku rajan yahay inuu sariirta ka dego marka uu bogsado kadib, ayuu yidhi usbuucii la soo dhaafay. Maalintii Isniintii waxaa la soo tabiyey in Mr. Bennett uu si iskiisa u neefsaday, inkastoo aad loo kormeeray, laakiin waxa dhici doona weli ma cadda. Doofaarka wadnihiisa la adeegsaday ayaa lagu sameeyey daaweyn wax looga beddelayo habka uu hiddahaan u shaqeeyo, si meesha looga saaro xididda sabab u noqon karayay inuu aqbali waayo jidhka Mr. Bennett. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP, Mr. Griffith ayaa sheegay in qaliinkan uu sameeyey si taxaddar badan, haddana uu si dhow ula socdo xaaladda ninkan.